waxaan duubi doonaa qayb ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan web design-ka basic-ka qaybta loo yaqaano CSS-ka. CSS marka hore waa cascading style sheet. marka HTML-ka wuxuu noqonayaa isaga just wuxuu noqonayaa sida skeleton-ka oo kale lafiyo ku noqonaya qurxintii waxaa noqonaya CSS-ka. marka qaabka waxa loo qurxiyo saddex qayb waaye. waxa mid loo yaqaano inline style oo ah isla qoraalkii HTML-ka gudihiisa in lagu qoro CSS-ka lagu qoro. nooca kale waxaa loo yaqaana embedded style in style la furo style la xiro, iyo external style oo ah banaanka ama CSS banaanka lagu save gareeyo. insha Allah practical sii guda galno. ugu horeyn waxaan isticmaalayaa Node++ ayaan isticmaalaa Notepad++. hadda waxaa inoo furan HTML-ka. haddii aan sameynayno waxa loo yaqaano tusaale ahaan oo kale waxa loo yaqaano head1. okay, head1 wuxuu noqonayaa this is black. no, waxaan this is red head. waxaan xirayaa h1 ayaa xirayaa. haddii aan save garayo file save. okay, waxaan ku save garaysanayaa desktop-ka. halkaan waxaan ku qoranayaa waxa la yiraahdo c inline style iskaga qoranaya inline style .html. inline-ka ayaan kan ku fiirinayna save marka. hadda haddii aan inline style sheet aan fiiriyo this is red head. hadda CSS-ka keligiis ayaa ii shaqeynaya. waxaa ii shaqeynaya HTML-ka keligiis. haddii aan rabo CSS-ka inaan ku daro halkaan ayaan ku darayaa. sideen ugu darayaa qurxinta inline-ka sidee loogu darayaa adigoo adeegsanaya CSS. waxaad halkaas ayaad furaysaa. waxaad leedahay style. waxaad siinaysaa waxa loo yaqaano calaamadda equal waa lamid ah. waxaad siinaysaa calaamaddaas ayaad furaysaa double quotation-kaas. waxaad leedahay color laba dhibic isdul saar wuxuu la mid yahay red ayuu la mid yahay. okay, calaamaddaas xiro intaas ayaad qoraysaa. markaas aad qorayso waxaa loo yaqaanaa inline style sheet ayaa loo yaqaanaa. aan save garay control s double click leh. okay, fartii waxay noqotay this is red color. haddii aan sameeyo head2 haddii aan sameysto waxaan dhahayaa head2. okay, kan waxaan ka dhigayaa this is waxaa loo yaqaano blue color. this is blue color. okay, h1 xir h2 waa xiro. marka la adeegsanayo inline-ka marka la adeegsanayo hadda waxaan sameyn waxa loo yaqaano inline. weli embedded-ka ma gaarin. embedded-ka waa tagayna laakiin hadda inline-ka waaye. halkaan aad gelinaysaa marka inline-ka marka la leedahay style sida hadda aan maray ayaad maraysaa. two dots waxaad leedahay fur. waxaad leedahay color laba dhibic waxaad siinaysaa. waxaad ka dhigaysaa blue. okay, save garay control s dheh. halkaan double click soo dheh. kana colorkan blue waaye kana waa maxay